halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood barta internetka ee bbc.com saacaduna waa 7 subaxnimo sanad wanaagsan idin lahaantiba waa kowda bisha koowaad 2019 barnaamijka subaxnimo waxa si wada jir ah idin kula socodsiinaya anigoo Oclaad ah iyo saaxiibkay Abdulqadar Xalanay Ahmed waxyaabaha barnaamijka subaxnimo aad ku maqli doontaan waxa kamid ah agaasimaha BBC Baydhabo oo wareysi gaar ah dhinacyo badan taabanaya la yeelanay ayaa dhageystayaashana sida tan u sheegay wada kadalaanay may mahatir bugordaan kaliya wararkan lanki daawadi mar mahatirek bahay mar maayka bahay mar mahatirek bahay mis arnaha medlay qoy maaylik tabiya ilan Soomaaliyan qodobada kale ee maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah soo carray meesh markii imaad gooba malaha gooyiisa mar hore qatay asaga naftiisa wax dhaco laakiin asaga waan gartay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan daqiiqadaha soo socda balse inta oo dhan waxa ka horeeya wararka dunida iyo Xasan Ibrahim Xasan Turkiya maasanid dalka Indonesia tsunami ka dhashay qaraha volcano ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof dad kor u dhaafaya sida ay sheegtay hay'adda maareynta iyo masiibooyinka dalkaasi muujada tsunami ayaa ku dhuftay heebaha Sunda maalmihii la soo dhaafay waxaana muujadaha hoose ay haaqeen 100 qori xeelo iyo kooxdada oo ay ka qayb galaysay xaflad ka socota meel habeed hay'adda maareynta iyo masiibooyinka Indonesia ayaa sheegtay in ka badan 800 oo qof dad ka badan ay ku dhaawacmeen tirada dhimashada ayaa laga sii absi qaba in ay sii kordhi doonto wararka ka imaanaya caasimada Kigali ee wadanka Rwanda ayaa sheegaya haweeney u dhalatay wadankaasi in ay badbaadisay 100 ruux oo ayna ku badbaadisay hub la'aan sababtaas ayaa la sheegay in haweeneydaasi ay ahayd nag saaxiirley waana ilaa iyo hadda gurigeed ayaa ku xareeraysan dad muddo sita ugu dambeyntii kabashada shaaha kulul iyo wax cunista inta u dhaxaysa cuntooyinka waaweyn ayaa kordhinaya baloolka iyo jajabka ilkaha daraasad arinta ku saabsan waxay ka soo baxday saynisyanin Britain u dhashay kuwaas oo sheegay inaysan ahayn wax cunista ay tahay sida loo cuno oo muhiim ah saameyn ku yeelan karto ilkaha qofka warkii dunidu waa naga inta aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Xasan Ibrahim Cabdi Xasan Turkiya barnaamijkeena subaxnimo inta aanan u gadagalin marka hore sanadii hoobilaame bishuuca ku tahay bartankiyo dhamaraba qofkii barwaaqo qodobka ugu horeeya saaka iyadoo BBC Baydhabo ay soo kordhin doonto barnaamijyo badan ayaa waxa wareysi gaar ah la yeelanay agaasimaha BBC Baydhabo Hussein Abdi Ahmed Hussein Arlaadi oo wareysi gaar ah la yeeshay Abdulqadar Xalanay Ahmed agaasime soo ogsina BBC Baydhabo geek way baan dabal degahayteen lama sano guurida ku wareegid xilliga la aasaasi way is erekore turkilanku baahanay akubati maxsan Abdulqadar way soo rekor BBC Baydhabo doorkilanku baahanay akubati horta BBC Baydhabo wala aasmay 1 January 2017 sababaha aasnin waliba haytay markii uu joogo on fiirni afkimaay oo liid oo TV afkimaay toos aan ku baahan lahayn markii uu fiirni waliba saarnay ko mismeekana BBC Baydhabo oo ku baahan afkimaay markaas waliba aan sanay intii uu sameyn meel raayis BBC Baydhabo okay agaasime wayba jartee dad qaar oo la weydiiyay su'aalaas oo kaliya inaysiin siin ku daabadana ee bar bulshada jartee meel kaleeysi wararkaasi si ku tubiyaaytan nagu jawaab lahayd su'aalaasi su'aalaas waliba aan ku jawaabay horta walidana page lana bara bulshada sida Facebook iyo YouTube tan kale waliba waa million on meel raayis TV oo ka baxaw BBC Baydhabo ilan ma waliba haynay dhalinyaro sionis abaal wili oo hormari fadayaan afshomaay okay agaasime dad qaar oo mayba jarana ilaa iyo hadda maskaxdii ay ku wareegdahay BBC Baydhabo sababtiyan ka bahaytay may maxatiri
sababtanka bahayd waliba horta waliba ana Soomaali gaar ahaan waliba ka aan raxweyn waliba ka hadalaanay may mahatir bugurdaan may mahatir bulshada kaliya wararkan lanki daawadi mar mahatir ka bahay mar maay ka bahay mar mahatir ka bahay mis arna hamad qoy maay ka taga ilan Soomaaliyan okay wayba jartay BBC bay dhago eliyaha kordhi doonta barnaamij badan barnaamijyadaas oo ku mid ah barnaamijkan ka magadaray kobci maskaxda barnaamijyadaas oo qiibtisan ku horeeyay tibigay ka baad doonaan barnaamijyadaas wala iyo ku saabsan ma ku mid ah mahadsan tabdigadar barnaamijyadaas wala iyo ku saabsan waliba barnaamij la araw kobci maskaxdaada doonayto barnaamijyo badan oo isdhaxgal bulshada ah barnaamijyo badan hada weyn insha Allah aysan baraga doontaan hadii misin ka hor dhiidoon insha Allah okay ugu dambeyntii dhageystayaasha daawadayaalka maxay ka baaqi lahayd dhageystayaasha daawadayaalka aan ku baaqi lahaayay BBC baydo horto aragaytan milyan ka aasni email hadaan run isku mid ma ah maybwa ortorto qof fuulaab wala isku day horto ergus leey deere maybwa alhamdulillah una de barnaamijyo dhowr ah saarni kumanaan saar korna meel raayus okay waa tahay daawade weliga ma maqashay tuug rabay inuu wax dhaco oo asigaba la dhacay aan idinkaga dhaxbaho Abdulqadar iyo mid kamid ah dhageystayaasheena mahadsanid qadarow waxaan inahay sheeko aad u cajiib badan aad u qosol badan sheekadaas u dhacaysa sida tan laba wiil oo walaalo ah ee isku qol wada jiifaan ayaa waxa u soo dhacay tuugaas ayaa sitay tuuga markuu qolka soo galay labadii qof oo jiifa agtooda ayuu go'ay sitay ayuu dhigtay marka agtooda ayuu dhigtay haye kadibna wuxuu aaday qolka ayuu si aaday si qolkaasi u soo baarto haye labadii qof oo jiifaan marka mid uu hurdaya midna waa soo jeedaa mid uu soo jeedaa haye kii soo jeeday waa soo kacay go'ay ayuu soo qaatay marka mid kamid ah go'ay soo qaatay hoos ayuu gashtay marka haye midna waa isku hurdaa midna waa soo jeedaa waan gartay kadibna kii hurda ee soo kacay marka haye markuu soo kacay qajab iyo wax ayuu maqlay marka haye markaas wuxuu dhahay mataqaanaa war hiilow war qajab ayaa yerisay qolka tuug ayaa soo galay kacni oo haye midkan jiifa sheekada waa la socdaya haye markaas wuxuu ugu jawaayo war waalan tahay tuug ma jireen naga seexo dhaay marka midku hurdaa wuxuu leeyahay qolka tuug ma jireen naga seexane waa waalan tahay haye kadib tuugi marka sheekada ayuu maqlay labada qof oo hadalka isku celcelinaya ayuu maqlay marka waan gartay dhagta ayuu taagay marka waa soo cararay marka kadib wuu soo cararay marka go'is inuu qaato oo hore u sii cararay waan gartay soo cararay meeshii markii imaade go'ba ma laha go'yiisa mar hore qaatay asiga naftiisa la dhacay asaga naftiisa la xiriir wax dhaco laakiin asaga la dhacay waan gartay kadib markuu wuxuu leeyahay taqaana ilaa kortiisa inta istaagay ay marka sheekada ayaa soo codmay labada qof oo sheekada soo celinayo qof tuug ayuu soo qormay beenta wixii maqlay marka asaga buu yaaban yahay ilaa go'yiisa uu maqan yahay azaab la dhacay marka wuxuu leeyahay taqaana ilaa kortiisa inta istaagay war qolka haduusan tuug ku jirin go'aya qaateen haduusan tuug ku jirin qolka go'aya qaateen kadibna wuxuu sameeyay taqaana waa si carabka yaabana ayaa ku shiday naftiisa de Abdulqadarow waxaa hore loo yiri nin geedgeli jiray geed looma gala sheekadani maxaad ka leedahay والله أرتا على sheekadani aad baan ula dhacay marka sheeka lagu keenay moogtahay marka waxaan soo xasuustay sheeka hada kor dhacday oo tuug dhacay nin waalan ninkii waalanana ahsan sameeyay marka sheekadani way dheer tahay oo hore uma sii dhaadhacayo colad oo tuug dhacay nin waalan ninkii waalanana ahsan sameeyay aad iyo aad warbaltan oo kale
anoo doociyo dareen deelqa fidilkii ka leexday dulqadanigoo xambartay maxaa dambiyu sameeyey dacwaysane laygu sheegay maxaa dambiyu sameeyey dacwaysane laygu sheegay anoo doociyo dareen deelqa fidilkii ka leexday dulqadanigoo xambartay maxaa dambiyu sameeyey dacwaysane laygu sheegay maxaa dambiyu sameeyey dacwaysane laygu sheegay jacaylka distoor la'aanta damiin iyo xeryaraanta haddana damugu ka doodin dadkena intii u laayay aya dusha sare ku qaada weliba diyadiisa dhiibay aya dusha sare ku qaadan weliba diyadiisa dhiibay saaxiib ka waran haddaad maqli jirtay sharcigii dalka waa la loolay dastuurkii waddankana waa lagu tuntay marka ma lays odhan karaa dastuurkii jacaylka waa la loolay dahabdaqadana horta waa lays odhan karaa dastuurkii jacaylka waa la loolay haye de gobollada qaar baana laga loolay jacaylka distoor la'aanta damiin iyo xeryaraanta haddana damugu ka doodin dadkena intii u laayay aya dusha sare ku qaada weliba diyadiisa dhiibay aya dusha sare ku qaadan weliba diyadiisa dhiibay waa hagaag saaxiibyaal barnaamijkeena subaxnimo waxaa inoo soo saaray mukhtaar isaaq amiin waxaana inoo farsamaynayay cabdishakuur cabdinuur shakraboy sidaas iyo nabaday